warka fudud wanaynhay waxaa weeyaan cunuganayto waxaan u qaadanaynaa toori baan u qaadanaynaa laba dhaxda ayaan kala goynaynaa nusna adaan ku siinaynaa nusna ta kala siinaynaa waa laba waxaan u haysa tii dhashay oo dhabta aheedna waxay tiri nus ima siinaysiina iyada wada sii bedelka cunuga dhiman lahaa ha korsatayada si unbay hadda ilaahay u ka dhigi doonaa inaan aniga dhalay waan ogsoonahay tii kalena waxay tiri hanaloo kala gooyo cunuga oo laba dhaxda ha lagu dhista iyadan nusan la siitana nusan la sii horta dowladnimada waa sida ninka wadaniga oo meesha ugu fiican jooga marka layska qabsado waxaa loo baahan yahay in la tanaasulo kuwana ay wax ogolaadaan kuwana wax ogolaadaan meel dhaxal iskugu imaado laakiin xariga aan kala goyna haddii la yidhaahdo oo meesha ugu dambaan isla gaarno haddee madhalig iyaga kasooma soo bixin waddankaasay anaa ugu faraxsanahay teestigii mise imtixaankiina soo maray maalin dhigto sidaasoo kale ku dhacday oo labada shacba lagu heshiiyey oo maaragtay laga gaaray xal hadda badbaado waddankana u noqday cayaatiinkiisana rajada soo kordhiyo weli ay si fiican u socoto waxaan idiin sheegi odaygii maxamed siyaad bahe ilaahay u naxariistaa wuxuu odhan jiray soomaalida wax habaar ku noqday marka gabar iimaanka lanaga qadibin jiray marka waxa uu ka keeni jiray dhaqasho iyo wax badan oo xanuun oo asaga hay waxaan u malaynaya tiibaad markaa muddo dheer ilaahay uu dhab nooga dhigay oo soomaalida waa ilahay iimaan ka qaaday laakiin alxamdulilah haddii ducadii waa in la badiyo ilaahay iimaanka ku soo celiyo adigoo madaxa waa inaad u ducaysaa dadka kale ummadaha kale oo islaamka haddaa aragtaan sacuudiga laga tegey xarabka maalin kasta waa looga duceeyaa dadka xaakimka oo xukunka hayo mise maamulka hayo anagana kuwaanaga mar kasta waa loo duceey waan u ducayn khayraadka ku jira soomaaliyana waa ti haddaan idin sheegay annagana waxaan nahay dad badan baa waxay odhanayaa faarax waa wadani faarax waa nin soomaaliya faarax waxyaabo badan oo maaragtay oo ammaan ah war heedhaha nafti baa noo geysay idinka haddii waxba noqon annagana waxba noqonayn marka annagaa isu dagaalamayna idinka kelina ma dagaalamayn annagaa naf oo doonayna inay sharaftiina soo noqoto sifo annagana meelaha aan ku noolnahay gobollada wadamaha kale ka midka oo soomaali ay maaragtay ay wada degan yihiin in maaragtay aan sharaf iyo wanaag iyo ixtiraam iyo wax badan oo maaragtay nalooga eegsan baa jira haddii ay waddankan uu maaragtay uu culudiisa iyo sharaftiisa iyo xooggiisa iyo magaciisa iyo qafkiisa soo cesho marka waxyaabahaasayto ayaan maaragtay aanu ku xisaabtanahayna annaga waxaa kaloo idin sheegayaa maanta waxaydan dhaamaba gobolka ma jiro haddii jirana wuu yari haaduu yari sidayna dal ku socotaana waxaan aaminsanahay 6 bilood oona la gaarin waxweyn la iska bedeli doono soomaaliya halaysu safro xaalka degdega marka lagu jiro mise emergencyga lagu jiro oo dagaalka lagu jiro sida maaragtay xaraasha oo dimuqraasiyada ay u shaqaynaysay maxkamadaha u shaqaynayaan markuu waddankuu degan yahay ma dhacayso maraykanka markuu ku duulay ciraaq waddan yaroo adduunka saddexaad oo maaragtay maraykanka 5,000 oo jeer uu ka xoog badan yahay haddana wax kasta oo dhanba waxay noqotay inay dowladda la shaqeeyaan baarlamaanka dowladda la shaqeeyo media-ga ay dowladda la shaqeeyaan embedded wax dhaha lagu sameeyo wixii qoran laha bay qorahayeen wixii dhabta habay qorayeen waxaa qoran lahana waxaa weeyaan wixii dowladdii iyo qarankii iyo maaragtay magaciisa iyo sharaftiisii lagu difaaci lahaa hadduu dad badan ka dhinto dadka way dhinteen lama odhanayo wax kastoo dhanba waxaa weeyaan in run laga sheegay qasab maaha hadda ku horba waxaa lagu yidhi nin madax ahaaba wuxuu ku yidhi dadkiisii wixii qola xabashiya ay ku wareegeysa gobolka soomaalida ay degan tahay ay hub doonaysa waa waayihii maaragtay ay gumaysiga kusoo rogayeen ay wuxuu yidhi war dowlad baan haysaa ciidankeedana naga xoog badane hubkana qarsada hana sheegina
iyagoo joogaan meesha ayuu ninkii madaxdaha waxaan waraynaa inuu awoog yahay inuu inta fadhiyo maanta ayaa wuxuu yidhi caawi inuu inta fadhiyo wuxuu yidhi annaga hubna ma hayno waxba ma hayno waxaan nahay dad raaciyad oo maaragtay idin aysan baan nahay oday kaloo asna adeerkiiba wuxuu yidhi oo sheekha anigu waan soo gaadhay odayga tuusan dhiman asagoo Ethiopia ka imaaday oo nagu yimid soo gobolka Soomaalida ka yimid oo nagu yimid Nairobi Gaas ilaahay ballankii runtaa ilaahay igu og yahay anuu mid baan haystaa buu yidhi laakiin iga halaabsan yahay inay hagaajin karaan bal ii weydiiyey ninkaas inta awooga wuxuu ku yidhaahday oo runtaada waa mid doono leh biyo runtaada waa mid doono leh lama baahno maanta runtaas manaheedu waxa weeyaan markasta runta looma baahno dowladnimada lagu sheegay waa khadaaca dagaalka waa khadaaca nabiga calayhi salaatu wasalaam buu yidhi alxarbu khadaaca tasameen marka waxa weeyaan waa dhagar iyo sir iyo wax kastoo kale weeyaan dimuqraasiyaan ku shaqaynayna waa in sida la sameeyo waa inaan isku sii daayo wadamo jiraan oo wadanka maya gobolada horta magacyaha ka bedela meesha maamul goboleedkaad ugu yeertaan madaxweyne waxaad ugu yeertaan governor sida annagoo kale waayo wax aan adduunka ku shaqaynayna soomaali kale kuma shaqayn karta dastuurkaa iyo nidaamkaana waxaa ka shaqeeyey intii soomaali cadowgeeda ahayd ayay ahayd governorka annaga hadda joogo oo gobolka maamulo base governorka maamula gobolkii ugu weynaa maraykanka oo California la oranayay intuu iska soo tuura ma imaan kara xamar oo madaxweynaha intuu la fadhiista farmaajo la sheekaysta base prime minister khayre base Nairobi intuu imaada Uhuru iyo Ruto intuu iskala sheekaysta iskama tegi kara maya lama xiriiri karo waddan kale oo ajnabi isaga oonan ka haysanin permission ka haysanin dowladdiisa wasaaradda arrimaha dibadda madaxtooyada ka haysanin isagoona uusan caddaynin oo justificationkii oo dhan uusan sheegin sababta u tegayo waddanka la hor tegayo oo haddana aan lagu biirinin wafdigiisa dad ka socda dowladda meeshana in jaahil lahoo aan aqoona lahayn oo shalay wuxuu yahay ilaahay og yahay waa ordi odhanaya imaaraadkan la soo sheekaysanaya imaaraadkan cadowga soomaalida iska cadda أنا سيب بدتين أنا يدي شيء أنا أبدأ مدحوينها عندها كل كتير كان صار الله هل كورة كم تجاه خائن الوطن تيتا your own state وطن عدو وهو وطن كامل هو إنه تكده هو لك عطى كل جوا أو كل ميستو أياد أرتي ساعة عندها هي وحرير بالله صغيرة ناي تبي صوتها تبي صوتها الرباك السيد جدي الشرعي انت حتى ارجع شيء اورميو قصب ويان ان لغا قاطو او قلاشا وزاره التعليم الدوله حفيظ مدحتويده هيدا سيفل سيرفيس شقالته كدوين شقالها انو اوغلاده ninka doofayo anaga hal mid oo civil servant oo technocrat oo ka bixi kara wadanka ma jira asagoo aan la siinin permission to travel outside clearance balda so clearance wasi ilkayga waa dhakhtar waa consultant surgeon xasiiskayga mid kamid waa dhakhtar ma bixi karaan wadanka ma bixi karaan iyaga oonan maarag hatta xajkii cumraan markay u kacay waa inuu kacaan wasaaradda oo la siiyey clearance iska daa ninka weyn taasoo wasiir iyo wax kala mid iyo nin baarlamaan ku jira maya you have to inform marka hadda annagana dhibaatooyin kasta ay idinkidan haystaa Soomaali haddii aad tihiin waa in xal loo helo ina Zaid Axmed Zaid allahuma ina khalifa nahyaar milkiisa sooma kan hadda waddabi haysta أنت وحول الفدية مدح سمع عليك إيمان كتك حال الوضع فقرب سمعنا اللي بجري it defies description
وحتى الله يفعل الله كرامات عاده الدون كنيته ودولتها يكون شقيان وحكب حسن بعد أنا وكل شقياننا ما يكون عذاب ولا هدوك ولا ودكينا سكتة عدونا كسكتة عدو الدبدة عدو وكل شقيسنا يقولها أنا ما يلكم الصلاة يلا استمري كرمالها halka tarkabta kusaaran ku day ka sabaxay galmudug ورودي انت laga baxay ilaa iyo la gaari kara meeshii maxay magaceeda cadaab lagu tay kara iyo sameeyay makriya waa hadda wadada Soomaaliha al-shabaab ku bagsanaan dalka siiyay cadawga Soomaaliyeed iyo ajnabi ku adeeganaa intii laga baxay Kismaayo lama tay kara maxay doobli hatta afladu lama tay kara taxdii ku jira هل اسمها فكرة ملها لكن هذه نبقى اسكو شيء امام الدولة دولي هذه كده انتو كنوفو مغالاء نيروبي وطاقو بس حمروا يمالو وديارات اوكر ولي بأي هدام الديارات كان كله الفاية اجنبي اللي سكتشين ايا الله سوى شيء كسنة بحين نقطة ودك مع سيدي ساوث امريكا وميني الدراكس كان ليش غيسينا والدراك لوردز كأي جوي جوي بطلي وين المعطي كاربو في العري او environment في الصوماليا وحين نقول دوتا لما الدقان بيزت نقول دوتا سيرة دفس عدو لهشي بقى أبرسان هيا العربتي وفوح من سيك كربسار هاي تسير دمرتي وخلا رمى إنه وكون صدب هذه بحياة دفش هذه قيلة هذه كوكا سنة جرينة ولا تدبرين هيا ولا تدبرين هيا قيليه أو على صارية على كل الدوم على صارية أو النفس الدفاعي كل دولة الصماء وده بلغده فينا هذا كلام دولا هو ضمنا هذا بحياة هجب الله هو ضمناتي أركب حني شيء ودكينا سوء الشدة ودنا ما لو باهياي أنيgu inaan ma oranayo in jeclaysi shaqo ku meliya aniga sheekh shariif waan soo garab qortay berigii anigoo rajo badan ka qabo maxaakiimta ayuu weynaa حسن الشيخ مركو يماني تعليمتي شغل في عنك قبتين أصدقي من هذا التلاهي ونحريستون صحيح ونعرفتون لوريتشري فارح التقاديري فهد كان هذا يدبضا وقرتي عن اسبرمي وكان أولي ماضي فرماجي مركو برايم منستر كهاي وعيد مدى ستي عن نوع عوية شيء فهد أقوم معنا ولا يسوى يرى ولا باطن ومركا تشري يعني اسبرمي ومارتي وشقي تشري وديكالي ثلاث الدول الله يبني هذا حسن خيري كشقيني ماشي أنا اللي قصوا دورتين ده بس هو نوجه ريفيجي كانسل كشقيني إنك استمركي وحان أنا ومركي ورسكو أفضل اسكو قرني رجل أن قبل هديه كنتو نادو وميل قرأ علي محمد جيدي صاحب عنه معنا هناك علي محمد جيدي وكنا ادعينين انت هذا الفضير وكرسي وقدو مركز عبد الله الهويري ودك على هذا كرسي ودي علي محمد جيدي وادارو علي محمد جيدي وهويه فراستريتو 4.5 الون مركز سوق قريبي مركز تمني الله يبدو فضيو انك مرحوم كهاب محمد ديري ayaa ogolaaday tan la hadlay tanaa ka soo saxay weli uu soo galay mid kasta markaan arkay mustaq shakhsiga aan u arkay haddana inuu qayn wadan yahay meesha isku kadabeysi ana tafaasiisheeda gelin kullina nin kasta si uu amaanay Cabdiwali isbata koor gari waan ugu tagay anoo Soomaali doon ay sharatin ay soo noqoto xabashida markuu wadanka soo gelay nool baan noqday markii علي محمد جيد وركات كانوا حوشي وستفيك جردنا والباين وانا كرتك حسن شيخ محمد وركو كنت يجيجيو ويدو قلت انك قرق حمر كنت من قبل كلها درتي وحانو يرسي حوشي دي يرسو حمرنا وقبل كل حاجة والك فضوالك عكسا كوان هدو حكيت وجهين ورسكوك نهي وهدو يرام وقتا إلا يهاتم حتى وينا كما عرقنا وقرن كما عرقتي حتى لوينه اللي بدونينا ما عرقنا اسبدلنا وانا رغنا اذا كباد اسماعيا ودنكي waa kor soo socdaan sharafti dibadda wadamihii goboladii meelihii la iibsaday dekedihii wax kasta oo dhan oo dad ajnabi u qaatay ay daba socdaan wax badan oo ku jeclaan ayaa hadda iga muuqata waxaan isleenahay aan garab siina annagana aan garab soconno ilaa guusha rasmiga la gaaro
waxaana ka ahayn danta ummadda Soomaaliyeed oo annaga nawalaynaysa ma jirto iyagoo dhan laakiin inta aan rajada ka qabno danta ummadda Soomaaliyeed garabna oo noqonayna waana garab istaagayna ummadda nool sheegayna waxaan leenahay war kuwana xoogaa lagu jeclaado oo kuwii kale ay kaga duwan yihiin baa jiraay bal horey aan u wadna insha allah ilaahay inuu guusha uu iyadoo kaamilan oo dhammaystiran aan ku helno hadalku idinguma doorinay waa wakti dambe weeyaan iga raalli ahaanaysaan nin waxaan ahay maaragtay inta badan wuxuu sheega soo la gabanin sheego laakiin ilaahay baa iga sarreeya wejiga ilaahay baan idin maartin ilaahay lama maran gashado inaad run sheegi moogi wanaagga Soomaaliyeed baa aniga keenaa intaas iga qaybisiinay wax ka duwan intaa ma jirto وانا ارغنا هذا اللايف we sing live at the end of the tunnel ان شاء الله باذن الله الباري انا نو سو دعي ودا كان aniga maalinka aniga barnaamijka soo galay saashin in labadii maanta dhaxdo isbedel badan baa ka dhacay waxaan noqonay dad hadda wadanka wax ku leh baan noqonay beriga hore xukuma aan lahayn dad xukumaanayaan u leeyahay laakiin se ku salaam karo Soomaalida dibta ku haysatana ilaahay baa bariyana si hadda Ethiopia inta hore wadada gumeystay ku haysteen haddana nin oramaa imaado asagoo ummadiisa la gumaysan jiray oo la adoonsan jiray waxaan isleenahay kii hore uu ka duunaan doonaa hadduu ka duunaayo waa soo dhaweynana hadduu ka duunaan weynana meeshii baan kaga wadayna asaga waa liska celin laakiin Soomaali dad maaragtay wiilka way ugu soo orade maaha insha allah qabkana wuu soo noqon aloolayga kii la yaqaanay wuu ahaa wax abuurkana waa la yaqaanaa muddada ugu yar waxay noqon doontaa wadanka gobolkan oo dhan ba ugu taajirsan oo uguna xoog badan insha allah biidni illahi albaari marka saasaan isku ognahay aad baad umahadsantihiin cashada